diyaaradii ugu horeysay oo duuliyaal-aan oo la tartanta diyaaradaha qarsoodiga xawaaro aad u dheereeya iyo joog saro diyaaradda dagaalka ee duuliyaal-aanta ee Kingi Tiha oo qaadi karta duqeyn xagga cirka kana dhuuman karta raadaarada ayaa si guula ku soo dhamaystay tijaabooyin lagu sameeyay sanadkan Kingi Tiha waxay awood u leedahay inay ka garaacdo bartilmaameedyada xasaasiga joog sare oo gaaraya 40 kun oo cag waxayna hawada ku jiri kartaa 24 saacadood intaa waxaa sii dheer waxay ku qalabaysan tahay qalab ka caawinaya inay jiha wareeriso raadeerada ugu casrisan tijaabooyinkii ugu muhiimsanaa oo martay waxa uu ahaa suurtagalnimada inay qaadi karto rasaasta diyaaradaha dagaalka F-16 isla markaana ay samayn karto raadaar u gaar ah kaasoo jiha wareerinaya diyaaradaha ka soo horjeeda una ekaysiinaya inay tahay diyaarad saaxiibtinimo iyadoo baabi'in karta raadaar walba oo ka soo horjeeda sidoo kale waxaa la hormariyay dhammaan qalabka elektarooniga iyo software-ka kuwaasoo si buuxda loogu soo saaray xarumaha maxalliga waxa ay leedahay baalal dhererkoodu gaaraya 20 mitir raadeer qaran khadka aragtida iyo nidaamyo dayax gacmeed Kingi waxa ay ku shaqayn doontaa xambaarayaal horumarsan sida qalabka taageerada elektarooniga ah nidaamyada isgaarsiinta satellite-ka shucaaca hawada iyo raadeerka ogaanshaha carqaladaha isla markaana noqon doonto mid caqli dareen dheeri ah sidato oo ka warqabta xaaladaha deegaan waxa ay qaadi kartaa rasaasta diyaaradaha dagaalka F-16 iyo gantaalka SOM-G iyadoo laga maamuli karo xarunta dayax gacmeedka qaranka iyo saldhigga dhulka ee lagu soo saaray awood maxalli ah